هيدا واحد سنة في ويران جالسيسا لا بقولوا كويس ويراشين جالسيسا إن أنت بدن واحد سنة في قدام بيسي جالسيسا لا بقولوا كويس وتشوفه قبل أولا sidoo kale hay'adda mashaariicda ay kuma koobna hay'adda American Relief Agency waa hay'ad u taagan mar kastaba inay dadka tabaalaysan dadka baahan dadkeena danyarta ay ugu dhex nool intaba ay wax siiso mashruucan maanta aan u fadhinaa oo mashruuca ugu weyn inta badan soo noqnoqda ee hay'addu si lacag la'aana ayna cidna waxba ka qaadin ay u tabarucdo jaamacadaha iyo institutionska ka shaqeeya waxbarashada sanadkay ugu yartahay 2 iyo 3 container oo buug qiimahoodu ay aad u badan tahay tanaka maanta ugu fadhinaayay waa $800,000 lacag ka badan ayuu ugu fadhiyaa hay'adda waxaan leenahay inay iga siiyo intaas aan kusoo gabagabeynaya information kii hay'adda waqtiga inta badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يمثل ولكن أحمد aan halkan ku arkayno live iyo araha waxa weeyaan live anu waxaan ku jiray board member baan ka ahaa markaan dabeeta ka imanayay waddanka imanayay waxaan codsaday inay gacan siiyaan dabeeta markaan weydiisto in ay muxuu ahaayay waxay la qabtaan ama buugaad ama muxuu ahaayay wax kaleba ha noqotee way ajiibeen dacwadeydii muxuu ahaayay way raadiyeen waxay ka raadiyeen America waxa jira khayraad badan oo ma garanaysaa haddii la dadaalo in laga keenayo ajiib yani tii ayga ajiibeen ayaa keentay in la soo mariyo hay'adda la yidhaaho araha oo halkan kule xafiis oo la iyada muxuu ahaa partner la ah inay muxuu ahaa soo mariyaan oo halkan noogu keenaan marka waxaan leeyahay dadkeena dibadda jooga ee muxuu ahaa wadamada kala jaadka jooga waddanka wax way tari karaan hadday u dhaqaaqaan sida Amoud Foundation u tartay ragii joogay Dallas oo dhowr qof ah ayaa isku tagay dhakhtarka halka ay ka dhigeen hadda waxa jooga 5 dhakhtar oo muxuu ahaa Mareykan oo wax bara ardaydaasi waxa ugu weynina waa waxbarashada oo cilmi oo muxuu ahaa horumarka keenaya marka waxaan leeyahay jaamacadaha aan siinay buugaadani inay soo saaraan rag muxuu ahaayay gabdhaba wax yaqaana oo muxuu ahaayay horay kor u qaada waddankeena oo jahliga ka saara waxa weeyaan buugaadani af kale ku qoran yihiin oo keen ahayn afkaana dee waxa loo baahan yahay si looga faa'iideysto in loo dadaalo inay bartaan oo si ay uga faa'iideystaan marka waxaan leeyahay ilaahay baa mahadli subxaanahu wa tacaala waxaanan ka rajaynaynaa jaamacadihii buugaadan qaatay ee donationka loo siiyey iyadoo aan lacag la weydiinin la siiyey inay horta kow libraries inay leeyihiin oo ay ku xafidaan oo ma garanaysaa dadkana siday uga faa'iideysan lahaayeen ugu dadaalaan waxaa jirta buugaadan ka hor waxaan keennay 6 container oo qiimaheedu yahay $6,500,000 waxaan ka soo bilownay muxuu ahaayay awdal hargeysa burco waan u qaybinay muddadaasi aniga iyo Ibrahim aye waxaan isku daynay inaan la kulanno muxuu ahaayay principalska iskuulladaasoon siinay workshops muxuu ahaa kor loogu qaado oo muxuu ahaayay waxbarashadu ay kor ugu kacdo inay u baahan yihiin iyaguna in la baro sida wax loo barbaariyo marka wax badan oo aan u baahannahay baa jira dadku hadday isku tashadaan oo ay dadaalaan ilaahayna uu la qabanayaa marka waxaan leenahay in la dadaalo weeye waddankan jahliga laga saaro waxaan leeyahay waxbarashadu waa aasaaska nolosha marka ilaahayna garansiiyo subxaanahu wa tacaala aynaguna dadaalka ayaa wax keenayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم أما جامعة iyo library-yada kala duwan ee ka faa'iideystay buugaagtan waxaanu yeelanahay isagna inuu kelmadiisa ka yiraahdo halkan walow inala fadhiyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee uu isnoo soo gabagabeyn doono isagu insha Allah billahi ta'ala waxaanu yeelayaa madax kamida madaxda Amoud Foundation oo isagu ama jaamacadaha iyo library-yada kala duwan ee ka faa'iideystay buugaagtan waxaanu yeelanahay isagna inuu kelmadiisa ka yiraahdo halkan walow inala fadhiyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
uu isnoo soo gabagabayn doono isagu insha allah biidnillahi tacaala waxaan u yeerayaa madax ka mida madaxda Amuud Foundation oo isagu ahna Professor Cigaal waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وقيب قلي شركنا مع لقدونسين يوم وقتها بوقتن أراها يلايف ككينان مريكن أدي أدبان نقول السلام عليكم نقول السلام على المجا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان ما سنتين I think إلها الله سبحانه وتعالى ما هذله وحكلوا ما هذله ضد كيسكو صاح القامي إنه يحكوا سو كرديان كسو كبعيان wixii dadku u baahnaa I think waxyaalaha annaku dhowr iyo 20 sano hortood inaan ka socono ahayd Soomaali siyaasaddu ay ku heshiin weyn baamishana waa lagu heshiin waayay laakiinse in dadkii aan ka nimidnay wax lagu taro oo wax lagu taro ayaan iskugu nimidnay Amuud Foundation waxa quree wax laga baahida laga bixi karaana waxay noqotay waxbarashadii anigii Ibrahim Baashalay ka hadlanay waxbarashadii in loo macneeyo loo bedelo dhaqaale in loo bedelo weey oo in qalinka iyo buugin la sita maahay in loo bedelo waxbarashadii dhaqaalahaasi oo maanta ay ka mid tahay wadanka India aanu markaan iskuulka tagi jiray macallimiin Hindiya noo dhigi jirtay cid walba waa laga faani jiray laakiin maanta India waxay noqotay super power bay noqotay waxa super power ku noqotayna wax kala maaha waxa weey cilmi marka haddii aan rabno in sustainable aan noqono haddii dadkeena aan noqono ama Soomaaliland ama Soomaaliya inaan haddaan noqono inaan rabno waa in loo noqdaa waxbarashadii oo laba waxbarashadii oo diiniya oo in diinteeni waxyaalaha ugu wanaagsan ee maanta 200 sanadood maanta la isweydiinayo lagu soo noqday waxa weey islaamkii haddii ama caafimaad ahaato ama business ahaatee culture-kii iyo dhaqankii islaamka hadii goor waxa la arki jiray executive MBA baan aanu bartay qofka leadership noqonayo inuu qof dheer oo saa dadka weego indhaha dadka ka cunay noqdo nimankii Wall Street Journal wixii ku dhacay waad ogaateen 2008kii way collapse garowday shirkadii ugu waaweynaa way dhaceen waxa lagu noqday in la ethics of business in la dhigo oo lagu noqday in MBA da class roomiska lagu dhigo Islam in ethics marka waxaan haysano haddaan Soomaalinahay wax weyn baan haysano diin islaama oo haddaynu islaam aan ka sii darnaan lahayn inaan ku noqono dhaqankeeni iyo diinteeni aanan ka qaadano dadka indidaan sheegnaa waa dad xoolo caabuda maantana waa dadka Apple iyo Google iyo shirkadaha ugu waaweyn nimanka ka madaxii waa Hindi marka waxa weey I think foundation-kii in la dhiso waxaan aad Ilaahay ugu mahad celinayaa Fariid oo aad iska xilqa saaray iyo Araha Maxamed oo executive ka Araha Ahmed I think executive kuna executive ka waxaan sheegayaa Araha Maxamed Idris Maxamed Idris oo nin aad oo halkan yimid 2011kii waanu mahad celinaa iyo live ba waxayna ku dad in ajaaniba weey wayna dareensan yihiin dhibaatadeena marka inaan Allah subhanahu wa ta'ala u mahad celino labada organization dadkii halkan keenay iyo nimanka dhalinyarada ee ka shaqeynaya Araha office Hargeysa aad baad u mahadsantiin laakiin inagu hadeenaynu waxba isku soo biirin idna waxba ina tarmayso soo jazaakumullahu khayran raallihada faatuk soo waqti badan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh school ee ka faa'iideystay kontiinaradii hore oo u tababaray tusay u dhigayna faa'iidooyinka ay leeyihiin buugaagtan iyo qaabka looga faa'iideysan karo waxaan leeyahay Professor Aye balsuuno horta dhamaantii waan salaamayaa waqti badan runtii lama haysto wasiiradu ay lahaan jireen marka waa soo gaabinaya anigu runtii wax weyn meeshan kama qabanin oo aniga arinta tababarka macallimiinta iyo maamulayaasha ay muxuu ahaayay halkan Hargeysa iyo Burco iyo Awdal aan u sameeyay in baarun ahaantii aan aad u maartay aan wax uga qabtay si laakiin mid aniga runtii aad ii yaab gelisay waxa weeyaan Maxamed Fariid hawshan aw qabtay runtii wali waxaan ku qiyaaso
cid kale oo qabatay levelka uu gaadhsiiyey iyo waxa uu u qabtay inuu buug yacni library lagu samayn karo every muxuu ahaayey secondary school oo Soomaaliya ku yaala Somaliland ku yaala waa gobol kasta secondary kasta inay samaysan karaan buug inafa loo keenay oo ay ka dhigan karaan muxuu ahaayey library arrintaana run ahaantii waan ku encourage gareynay waanad ogtihiin waxbarashadu waxyaalaha ay ku salaysan tahay waxa ka mid ah macallinku waa aasaasaha u weyn wixii kale ku xigaana waa resource materialkiina waxa ugu sarreeya ee ugu waaweynina waxa weeye waxbarashadaasi si u suurto gasho waxa weeyaan waa buugtaas iyo wixii kale ee muxuu ahaayey run ahaantii information ee dadkii ka faa'iidaysanayeen sida library-gii oo kale iyo howlahaas waxaanan ka filayaa run ahaantii Fariid inuu marka dambe arrimo aad inoogu dhiman oo kadeeda oo muxuu ahaayey waxbarashadeena runtii dhaawac weyn ku haysa oo ka mid yihiin muxuu ahaayey materialkii muxuu ahaa laboratorieska inuu taana markaa inoo suurto gelin karo waa nin dadaal badan waa nin aan soo wada shaqaynay waa runtii waa nin aan ku ogahay inuu yacni hawlkar yahay marka isagana codsiga aan u samaynaynaa waxa weeyaan inuu dadaal kale uu sameeyo wejigaa hore uu sameeyey waxa ahayd weji very productive ah macallimiintii iyo maamulayaashii iskuullada gobollada oo dhan ciddina aragtaaba run ahaantii aad iyo aad bay noogu mahadnaqaysaa waxayna run ahaantii aan hadda gaadhsiinayaa muxuu ahaayey Fariid wasiiradii hore Samson iyada qudhadeedu arrinta aragtay waana run ahaantii aad iyo aad bay run ahaantii noogu mahadnaqaysaa okay hadaana runtii yes absolutely taa kullee mahaddeeda waxa la Fariid baa ii horeeyna waa yiri aniguna waan ku darayaa inunkuna kullee mahadda waa inaad u haystaan dhammaantiin hay-adahaas waa life iyo araha labadaasi waxa weeye xil weyn bay iska saareen hawshaasi waana suurto geliyeen dadaalku waa halkaas insha Allah ta'ala inteena kale aan dadaalayna inana bal aan isku dayno inaan inana dadaalka u dhigma ama ka badiyaba aan keeno wassalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ بروفيسور كو المدوه جو يلاحظان مهنقة كفايدة بوجاكتين كفايدة جامعة هي سكوتشري ليبريريا وحنا جوه ريالي بروفيسور كوجود استنس كدير سو مري سوي حفلة نقول قيم قاطو أو بربرة بابليك لايبراري بروفيسور أحمد عوالة وحنا لا هيفعل يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn madaxda iyo martida iyo qabanqaabiyaasha bahda saxaafadda intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaqiiqatan halkan waxaan u imi kelmad mahadnaqa inaan ka jeediyo kelmaddaas oo ah madashan aadka ugu quruxda badan ee magaranaysaa aqooneed isla markaana magaranaysaa agabkii aqooneed lagu qaybinayo ama lagu qaybiyey oo aan matalayo berbera public library ama maktabadda caamka ee berbera halkaasoo aan ku guddoonnay 1681 buug aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii soo qabanqaabisay xidhiidhkii ugu horreeyay waxaanu wada samaynay axmed baanu wada samaynay aanu ka wada shaqaynaynay intii ay hawshaasi socotay haddaan wax yar idinka sheego maktabadda caamka ee berbera waxaynu odhan karnaa waa maktabaddii ugu horraysay ee intii dalka lagu soo noqday ee la wada leeyahay ee ay dadku wada dhisteen ee ka hirgashay dalkeenna waxa qorshayaal waa jiraan hadda maktabada la dhisaayo marka weliba meel aad iyo aad u faras magaalo oo caan oo berbera ku ah dhulkii shacabka ahaa ayaa laga sameeyey oo markaas xaqiiqatan bugaagtaasi waxtarkoodii durba waa la taabtay mar allaaliya markii la dhigay ka qaybgalkii iyo booqashadii dadkii soo booqanayay maktabaddii 3 jibaar meel waxa weeye wax aad iyo aad loogu baahnaa siiba berbera xaqiiqatanna anoo ku hadlaaya magaca guddida waxaanu ballan qaadaynaa inaanu magaranaysaa maaragtay sidii bugaagtaasi aanay u dayacmi lahayn iyo daryeelkooda
isla markaasna waxa qorshaha noogu jira haddii ilaahay yidhaahdo ama degmada gobolka berbere ugu jira in maktabadaas la weynaysiiyo xidhiidhka aynu samaynay araha waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in abwaagta noo soo kordhisaan qorshaha jira ma garanaysa inaanu secondaryyaasha gobolka qudhooda aanu gaadhsiino xaqiiqatan waa hawl aad iyo aad u qurux badan oonu leenahay waa ku mahadsantihiin idinka iyo hay-adda kale ka dambaysa ma garanaysaa life professor fariid qudhiisa hawsha quruxda badan ee laga sheegay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaaka allah khayran baanu leenahay khayra jazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ka faa'iidaystayaashii kale ee jaamacadaha uu ugu horeeyo professor diiriye oo ka socda jaamacadda camuud bal siduu kelmaddiisa mahadnaqa ah uu yidhaahdo waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد waxaan u malinay kolka waan soo yar gabagabaynaynaa oo hor anu intii la doonayay waa la yidhi laakiin mahadnaq ayaanu soo kacnay mahadnaqaasoon aad waxaan ugu mahadnaqayna haddaan nahay jaamacadda camuud hay-adda araha ee soo dhex marisay buugta life ee uu madaxda ka yahay fariid ee aad iyo aad u soo dadaalay ayaan horta aad ugu mahadnaqaynaa mahadnaqaasi oo xagga ilaahayna ay qayb ku leeyihiin waa waxbarasho haddaan nahay jaamacadda camuud markii koowaad ma aha markii labaadna ma aha markii saddexaadna ma aha waa ay tiro beesha inta buugay noo keeneen laakiin ninbaa wuxuu yidhi ninbaa salaad tukanayay oo waxaa la wuxuu yidhi salaad buu tukanayo maqriboho aniyo wuu tujiyey wuu luuq fiicnaa moogtahay kolkii uu ka soo baxay luuq fiican idaabale aad baad u cod fiicnayde kolkaasuu yidhi weliba sidaasaana weyse qabin buu weliba sidaasaana weyse qabin buu imika intaasoo waxa ayaa lanoo keenay laakiin imikuuba waan u weysaysanay oon u dhisannay guri 2 dabaqa 2 fooqoo isdul yaalla ayaabaan imika buugta u samaysanay fariid adiguna waxaan u malinayaa konteynaradii inaad nooga badan doonto halkaa xagga caafimaadka oo weliba ha u badnaata xagga caafimaadku taasi weeyaan ta kale dee sida aad u dadaalaysiin umaan annaguna u dadaalaynaa oo kol xoolaha dacwada laga qari qoloba dhinac ubay shaqada ka haysaa oo annaguna inaan buugtaa xaslanno oon ilaalinno oon ardayda iyo buugta isbarno taasina waa mas-uuliyadda ugu weyn waa inay bartaan ardayda buuggan ay dhiganayaan maxay isku yihiin qoladii xisaabta war buuggee ugu fiican kan bara taasi waa waxyaalaha kolkaad noo keentiin annagaaba inaga sii hawl badan baanu malaynayaa isbarta waxaasoo kontaynara ah iyo carruurta sidii la isku bari lahaa taa iyo xafidaaddoodii iyo ururintoodii annaguna xaggaaba jasaakallaahu khayran had naga odhanaysin haddii la idhaaho marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه هذا يوم سي بروفيسور ديريه waqtigeena ugu kooban awgii waxaan ugu yeerayaa haddana jaamacad ka mid ah jaamacadaha hargeysa ahna jaamacadaha ugu waaweyn matalaysana jaamacadaha gobolka maroodijeex ahna midda ka faa'iidaysatay waxaan leeyahay professor nimcaan oo ka socda jaamacadda golis falyatafadal mashkuura أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa kolley kelmadeedu waa mahadnaqun waxaan u mahadnaqayaa labada hay-adood life iyo araha si gaarana waxaan ugu mahadnaqayaa professor fariid sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa axmed iyo xasan miisaan iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan qaaliga runtii waynu la soconnaa waxbarashada waxa u aasaasaa in la helo sida ay sheegayeen qolooyinkii ugu horreeyey facilitieska waxaana kow ka ah buugaagta annagoo markii ugu horreysay professorku uu donationkan la soo gaadhsiiyo aad baanaan ugu faraxnay isagiiyo guddoomiyuhuna way kulmeen waxaan jecelnay insha allah inuu xidhiirkaygu intaa ka sii dheeraado aad baanaan ugu faraxsannahay buugaag noocanoo quality noocaas leh inay jaamacaddu hesho runtiina jaamacadda golis aad bay ugu faraxsan tahay waxaanan markiiba u yagleelnay inaannu library dhigno
oo imika uu socdo furnitureskiisi iyo wixiisiyo dhan ay socdaan sida uu professor diiriye sheegayo waxaan sugaynaa uun in loo soo kordhiyo weli waa annagoo baahidu way taallaa waanu baahannahay jaamacaduhuna sidii unbay u baahan yihin lagama dhargo cilmigana lagama dhargo saasoo markaa haddaynu doonayno inaynu aqoontayna kor usii qaadno waa in la helaa akhriskuna wuxuu ku xidhan yahin bugaag la helo dunidan casriga la joogana bugaagtu way isbedbedelaan oo imika tusaale ahaan jaamacadaha waddanku ma helaan fershaniskii ugu dambeeyey bugaagta marka waa aad baan ugu faraxsannahay weliba waddamada dunida waxbarashada ugu horreeya inay inaga soo gaadheen bugaagteedu mar labaad waan idiin mahadnaqayaa aad baad u mahadsantahay professor iyo intii kasoo shaqaysaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد يادي يوم سيهي بروفيسور نمعان وحنو يالي سجنا متلها جامعة إيلو وإن لو تشوي سجنا بروفيسور كا أما هجاميها أما قدوميها بروفيسور خضر وحنا له فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وسير حقيقة وسرد وحبرشة تعليم تصره أقاسمها هايدن أراها mas-uuliyiinta kale hadday ka socda jaamacadaha guurtida camuud foundation iyo cid kastoo madasha fadhida oo runtii aanan magac dhabin waxaan idinku salaamayaa asalaamu llahi calaykum waraxmatu wabarakaatu runtii wax badan waxaan la qabaa walaalihii iga horreeyey iyo mas-uuliyiintii iga horreysay ayaan la qabaa wax badan ay bildaamiyeenna runtii waxaan jecelayn inaan sii xoojiyo siday horena ugu mahadnaqeen labadan hay-adood ee runtii ishuwan ee Araaha iyo Life runtii ana waxaan jecelahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celiyo sidii diiriya sheegay runtii ma aha anaga markii koobaad ma ahana markii labaad laakiin waxa weeye waa tiraba dhowr jeer buugtaasina waxay wax badan ka tareen baahiyii jaamacadda qaarkood waxaa loo isticmaalaa imika waxaan loo isticmaalaa textbooks ayaa qaarkood buugta runtii loo isticmaalaa qaarkood waxaa reference ayaa loo adeegsadaa qaarkood waxay naga furteen culaysyo kale oo dhaqaale oo hadda markaad hal buug koobiyeynaysay ama aad ardayga u sameynaysay waxay kugu qaadanaysaa ugu yaraan $15 runtii taasi culayskaasi iyo baahidii oo iswanaydba runtii wax badan bay ka tartay buugtaas waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii walaalihii ugu horreeyayba sheegeen haddun baan u miciyalisanay haddun baan isleenahay malaha jiibti iyo jaanta waad isla hesheen oo in halkaa laga sii kordhiyo ayay runtii muhiimaddeedu leedahay runtii Fariid iyo Axmed muddo badan baanu ka wada shaqaynay labadan mas-uul ee hawshan waxaanad moodaa inay annaga baahidayada qudhada marka buugta laga hadlayo annagii xitaa nooga lex jeclo badnaayeen kolba siday noogu muujinayeen nooguna xoojinayeen marka kolley goor gaaban hadalkeedna gaaban wax badanna odhan maayo laakiin wixii walaalihii igu horreeyey iyo mas-uuliyiintii kaleba yidhahdeen unbaa runtii la qabaa aad iyo aad baan idigu mahad celinaynaa ilaahayna miisaanka xasanaadka runtii ha idinku daro wax badan baad hadday waxbarashada tahay iyo hadday baahiyaha kale bulshadaba tahay aad ka qabateen halkaa ka sii wada annaguna waxaan inila qaban karno ka jaamacad ahaan iyo ka shakhsi ahaanba iyo ka bulsho ahaanba runtii diyaar baan idila nahay aad iyo aad baanad u mahadsantihiin asalaamu allahi calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waynu ka soo dhammaanay xaggii jaamacadaha iyo library-ga waxaan u yeeraynaa waxaan u weecanaynaa xagga dawladda waxaan u yeeraynaa ka faa'iidaystaha isagna peace ka socda peace and development oo ah professor xasan halas oo isagu noo jooga waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبتلي وجلوا أكاديمي فور بيس أند ديفلوبمنت. runtii buugtan la soo gaadhay waa deeqadii ugu horeysay maaha waayo waxaan rabnaa inaan yagaleelaan doonayn maaha doonay School of Public Policy Studies dibadna markaasaan maaha inaan library abuuro oo waxyaalaha ku shaqada researchka iyo public policy-ga iyo social science-kaas yaan maaha naga yaan aad u taasgareynay markaas naga caawiyeen
runtii waa markii ugu horreysay weli wuu dhismayaa weli muxuu dhisma uu socdaa laakiin waa meelaha muxuu ahaa waddankana aad looga baahnaa muxuu in muxuu ahaa runtii ay hala qaado hadda lagu jiraa halowskii lagu jiraa dhawaan buuna bilaabmaya markaa konsaamkii ugu horreeya buugtan iyagaa runtii aan ka helay taas aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii muxuu ahaa runtii fududaysay iyo muxuu ahaa meelahay soo mareenba iyo ciddii muxuu ahaa hawshaas ka xil qaatay sidii hore oo lagu mahadnaqay midda labaad xagga macallinta u noqonayaa xagga waxaa hadda la sheegayay buugtan in la siiyo ardayda textbook loo isticmaalo waan agaagay runtii waxaa fiican lahay haddii textbook loo isticmaalayo in lagu soo daro student manualkii iyo teachers manualkii iyo test bankoog inay wataan oo ka caawin lahaa macallimada muxuu ahaa inay muxuu macallinka wax dhigaya waxaas in muxuu ahaa siduu u qasan lahaa markaan textbook la keenine la keenan soo raayay kuwa textbook ahaan macallinkii ku shaqeynayay manualkiisii iyo test bankiisii iyo student manualkiisiina waa mid tala muxuu ahaa ku dartaan kuxsaabtaan haddii textbook loo isticmaalayo taas waa taa marka runtii buugtan aad ilaa dugsi dhexe oo ay gaadhay ku saraba oo aad bay muxuu ahaa runtii wax uga bedeshay muxuu ahaa waddankan muxuu intay gaadhay baan anigu aad u qabaa meelahan tegayna waxaan arkay muxuu ahaa iskuulaha secondaryada oo library laho reference ahaan oo akhrisanaya oo yaan arkay marka wax loo baahan runtii weeyaan waa culture cusub oo aynu rumayna inaan ardayna ku barro weeyaan marka ciddii hawshaa runtii iska hel qaaday waa aad buu mahadsan yihiin ilaahayna jahaysaa ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفل في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كسو قيب قلياشا تتلذا كلا دوان وطا جامعة xildhibaanada iyo hay-adaha qolooyinka ka joogaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdi halkan maanta waxay noogaga furan qolo walba mahadcelin inta ka waafaqsan inay ka mahadceliso waxaan u mahadcelinaynaa hay-adaha buugtan ina siiyey بروفيسور فريد ونوغا سو قاداي هيدا لايف iyo hayadan kale araaha ayaanu aad ugu mahad celinayna ka wasaarad ahaan buugu hadii macallinku waayo agabka waxbarashada wixiisu waxba ma noqdo maalinba wax buu sheegayo wixiisu waa soo xidhmaan agabka waxbarashadana waxa aasaas u ah ama gundhig u ah buuga ilaa imika tiknoolajiyadani markay soo baxday waxa la yidhi buugga miyay bedeli karaysaa tiknoolajiyadan casriga oo haddana waxaa la ogaaday inaynay marna buuggii tiknoolajiyada casriga aynay meesha ka saari karin balse uu buuggii weli hormoodkiisii uu yahay waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa professor Fariid oo walaalkay xaaji maxamed ismaaciil kaahina saaxiib dhow ay ahaayeen aad ayaan ugu mahad celinayaa dadka qurba joogtii waxa cid walbaaba way dadaashaa laakiin qaarna dhinaca positive-kay u dadaalaan sida Fariid oo kale oo buug iyo agabka wanaagsan ee waxtar kale ayay inoo keenaan qaarna iyaga ina kala fogeeyo qabyaaladii iyo wax inoo keena markaa waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan ayay leeyihiin shakhsiyaadka iyagu horumarka ka shaqaynaya dalkani wuxuu soo maray iyadoo warqad yaroo wax lagu qoraba la laayahay daasadana lagu fadhiyo maantana alxamdulillaah dawladdii iska daayay shacabkii qaarkood ayaa waxay fahmeen in dadka maankooga in la dhiso mooyaane uunu dadkani kala soconayno iyagu isku soo noqonayaanba marka laga yimaado waxbarashada xataa nabadgelyada ayay ka qayb qaadanaysaa dhallaanka in la mashquuliyo oo aan la odhan 4 warqadood oo kaliya weeyaane oo macallinku waa halkaa ku qoraye maraajic iyo reference waxyaalo ka dambeeyay library baa jira horumarka cilmiga marka laga hadlayana ka wasaarad ahaan qaybtan agaasimka waxbarashada sare waxyaalaha la soo kormeeray laga soo kormeeray jaamacadaha waxa kamid ah talow library wanaagsan oo wax laga akhristo meeshan ma leedahay mise waa maqaaxi laga baayac mushtarayo marka waxaan filaynaa in buugaagtani aynay noqon
kuwa dhasku dilo meelo la saaray sidii mararka qaarkood xataa waxaynu aragnaa kitaabka qur-aanka ah oo gaari dhex yaallo dhasku ku dhacay ama meel yaalla markaa sidaa caadada aynu leenahay ee aynu nahay dad afka wax ku kala qaata ee aan buugga waxbaba ka eeginay yidhaahda joornaalka kani markuu akhriyana isagoo akhrin kara xataa uu yidhaahdo war maxaa ku qoran oo uu diidayaa taymkaa uu indhaha uu wax ka akhriyayaba ummadda islaamkuna iyadaa asal u leh wax akhriska oo intii aan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam la odhan tuka aan la odhan oo aan cibaadayso la odhan dee wax akhri baa la yidhi taasi maanta ay waqtigaasi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu yidhi wax akhri oo ummaddii wax akhriska aynu nahay ayaa maanta adduunka waxyaalaha lagu kala saaro bulshada marka la leeyahay ummaddani waa ummad horumartay imisaa wax akhrida waa midh ka mida marka aad ayaan ugu mahad celinayaa labadan hay-adood life iyo hay-addan kale araaha wasaarad ahaan hawlna saarnayd ayay naga furteen oo ay naga fududeeyeen anigoo weerdhac ku matalaya wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor geedoole xaggii dambuuna ha ka qabta magaciisa intaa dambaa caan baxdaye oo isaguna hawl ku sahabsan xagga waxbarashada ugu maqan bari iina soo wakiishay kelmaddan ayaan aad aan idinkaga mahad celinayaa hawsha ku dayashada mudan ee aad samayseen dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanna waan idinku garab joogaynaa hawshaasi assalaamu calaykum guntiga gabagabadii waxaan gaadhnay intii ugu dambeysay barnaamijkeena waxaan guddoonsiin doonaa jaamacadaha sawirero group ah oon ka qaadi doono أنا بروفيسور عقال وحن لا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا قيب قلي شركنا ما لقدونسين يوم وقتها بوقتن أراها يلايف ككينان مريكن أدي أدبان نقول السلام عليكم نقول السلام على المجا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad u mahadsantihiin I think ilaaha alla subxaana wa tacaala ma hadle waxaa kaloo ma hadle dadka isku soo xilqaamay inay wax ku soo kordhiyaan ku soo kobciyaan wixii dadku u baahnaa I think waxyaalaha annaku dhowr iyo 20 sano hortood inaan ka socono ahayd Soomaali siyaasaddu ay ku heshiin weeyeen baamishana waa lagu heshiin waayay laakiinse in dadkii aan ka nimidnay wax lagu taro oo wax lagu taro ayaan iskugu nimidnay Amuud Foundation waxa quree wax laga baahida laga bixi karaana waxay noqotay waxbarashadii anigii Ibrahim Baashalay ka hadlanay waxbarashadii in loo macneeyo loo bedelo dhaqaale in loo bedelo weey oo in qalinkii iyo buugin la sita maahay in loo bedelo waxbarashadii dhaqaalahaasi oo maanta ay ka mid tahay
waddanka indiya aanu markaan iskuulka tegi jiray macallimiin hindiya noo dhigi jirtay cid walba waa laga faani jiray laakiinse maanta indiya waxay noqotay super power bay noqotay waxay super power ku noqotayna wax kale maaha waxa weeye cilmi marka haddii aan rabno inaan sustainable aan noqonno haddii dadkeenni aan noqonno ama Somaliland ama Soomaaliya inaan haddaan noqonno inaan rabno waa in loo noqdaa waxbarashadii oo ah laba ah waxbarashadii oo diiniya oo inaan diinteenni waxyaalaha ugu wanaagsan ee maanta 2000 sanadood maanta la isweydiinayo lagu soo noqday waxa weeye islaamkii haddii ama caafimaad ahaato ama business ahaatee culture-kii iyo dhaqankii islaamka hadiyo goor waxa la arki jiray executive MBA baan aanu bartay qofka leadership noqonayo inuu qof dheer oo sida dadka u eego indhaha dadka ka cunay noqdo nimankii Wall Street Journal wixii ku dhacay waad ogaateen 2008kii way collapse garowday shirkadii ugu waaweynaa way dhaceen waxa lagu noqday in la ethics of business in la dhigo oo lagu noqday in MBA da class roomiska lagu dhigo Islam in ethics marka waxaan haysano haddaan Soomaalinahay wax weyn baan haysano diin islaama oo haddaynu islaam aan ka sii darnaan lahayn inaan ku noqono dhaqankeeni iyo diinteeni aanan ka qaadano dadka indidaan sheegnaa waa dad xoolo caabuda maantana waa dadka Apple iyo Google iyo shirkadaha ugu waaweyn nimanka ka madaxii waa hindi marka waxa weeye I think foundation-kii in la dhiso waxaan aad ilaahay ugu mahad celinayaa Fariid oo aad iska xilqa saaray iyo Araha Maxamed oo executive ka Araha Ahmed I think executive kuna executive ka waxaan sheegayaa Araha محمد إدريس جزاك محمد إدريس ولناد وهالكن يمدي 2011 كي وأنا مهد علنا يلا أشبه وحين كو ضد إن أجانب وين إن الدراسين دبعتين كاين الله سبحانه وتعالى ومهد علينا لبدو organization ضد كي هالكن كيني يعني ما كان دلنيارة ذاك الشغيني أراها أوفيس هرجيسة أد بعد مهد سنتين لكن سإنه قاعدين إنه وحبيس سكسو بيرين ديننا وحبيس كبيرين إننا وحبينا ترميس سو جزاكم الله خير أنا رالي هذا فاتك صول وقت بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الرجال وحيابها هي فايدين كيليهين إن وحلا يسترى بل هذا واحد ويرينا بروفيسور سكنا كلاو ينلو جوجا وآه توبره أما تصيه أما هاجيه تصي أفريس استدي أفرتن كي سكول كفايدستي كونتينر هراء أو توبري تصي ودقينا فايدين كيليهين بوقتن يقاب كلوجو فايدي سنكرو وحن لا هي بروفيسور أيه ولا صوينا horta dhammaantii waan salaamayaa waqti badanna runtii lama haysto wasiiradu ay lahaan jireen marka waa soo gaabinaya anigu runtii wax weyn meeshan kama qabanin oo aan aniga arrinta tababarka macallimiinta iyo maamulayaasha ay muxuu ahaayay halkan Hargeysa iyo Burco iyo Awdal aan u sameeyay in baa run ahaantii aan aad u maartay aan wax uga qabtay si laakiin mid aniga runtii aad ii yaab gelisay waxa weeyaan Maxamed Fariid hawshan aw qabtay runtii wali waxaan ku qiyaaso cid kale oo qabatay levelka uu gaarsiiyay iyo waxa uu u qabtay inuu book يعني library lagu sameyn karo every muxuu ahaayay secondary school oo Soomaaliya ku yaala Somaliland ku yaala waa gobol kasta secondary kasta inay samaysan karaan book enough loo keenay oo ay ka dhigan karaan muxuu ahaayay library arrintaana run ahaantii waan ku encourage gareynay waanad ogtihiin waxbarashadu waxyaalaha ay ku salaysan tahay waxa kamid ah macallinku waa asaasaha u weyn wixii kale ku xigaana waa resource material kiina waxa ugu sareeya ee ugu waaweynina waxa weeye waxbarashadaasi si uu suurto gasho waxa weeyaan waa buugtaas iyo wixii kale ee muxuu ahaayay run ahaantii information ee dadkii ka faa'iideysanayeen sida library-gi oo kale iyo hawlahaas waxaan ka filayaa run ahaantii Fariid inuu marka dambe arrimo aad inoogu dhiman oo kaleeda oo muxuu waxbarashadeena runtii dhaawac weyn ku haysa
oo ka mid yihiin muxuu ahaayey materialkii muxuu ahaa laboratorieska inuu taana markaa inoo suurtagelin karo waa nin dadaal badan waa nin aan soo wada shaqaynay waa runtii waa nin aan ku ogahay inuu yacni hawlkari yahay marka isagana codsiga aan u samaynaynaa waxa weeyaan inuu dadaal kale uu sameeyo wejigaa hore uu sameeyey waxay ahayd weji very productive ah macallimiintii iyo maamulayaashii iskuullada gobollada oo dhan ciddina aragtaaba run ahaantii aad iyo aad bay noogu mahadnaqaysaa waxayna run ahaantii aan haddaa gaadhsiinayaa muxuu ahayey fariid wasiiraddii hore samson iyada qudhadeedu arrinta aragtay waana run ahaantii aad iyo aad bay run ahaantii noogu mahadnaq okay hadaana runtii yes absolutely taa kolley mahaddeeda waxaa le fariid baa yidhi horreynana waa yidhi aniguna waan ku darayaa idinkuna kolley mahaddaa waa inaad u haystaan dhammaantiin hay-adahaas waa lift iyo araha labadaasi waxa weeye xil weyn bay iska saareen hawshaasi waana suurtogeliyeen dee dadaalku waa halkaas insha allahu tacaala inteena kale aanan dadaalayna inana bal aan isku dayno inaan inana dadaalkaa u dhigma ama ka badiyaba aan keeno wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدو نور شيخ بروفيسور كو المدوه جو يراهدان مهنقة كفايدستياشي بوجاكتين كفايدستياش جامعتها هي سكوتشري ليبريريا وحنوجه هريري بروفيسور بروفيسور كوجود استنس كدير سو مري سوي حفلة نوجه قيب قاتو أو بربنا بابليك لايبراري بروفيسور أحمد عوالة وحنلاقي هاي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn madaxda iyo martida iyo qabanqaabiyaasha bahda saxaafadda intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqatan halkan waxaan u imi kelmad mahadnaqa inaan ka jeediyo kelmaddaasoo ah madashan aadka ugu quruxda badan ee magaranaysaa aqooneed isla markaana magaranaysaa agabkii aqooneed lagu qaybinayo ama lagu qaybiyey oo aan matalayo berbera public library ama maktabadda caamka ee berbera halkaasoo aan ku guddoonnay 1681 buug aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii soo qabanqaabisay xidhiidhkii ugu horreeyay waxaan wada samaynay axmed baan wada samaynay aanu ka wada shaqaynaynay intii ay hawshaasi socotay haddaan wax yar idinka sheego maktabadda caamka ee berbera waxaynu odhan karnaa waa maktabaddii ugu horraysay ee intii dalka lagu soo noqday ee la wada leeyahay ee ay dadku wada dhisteen ee ka hirgashay dalkeenna waxa qorshayaal waa jiraan hadda maktabada la dhisaayo marka weliba meel aad iyo aad u faras magaalo oo caan oo berbera ku ah dhulkii shacabka ahaa ayaa laga sameeyey oo markaas xaqiiqatan bugaagtaasi waxtarkoodii durba waa la taabtay mar allaaliya markii la dhigay ka qaybgalkii iyo booqashadii dadkii soo booqanayay maktabaddii 3 jibaar waa 3 jibaar meel waxa weeye wax aad iyo aad loogu baahnaa siiba berbera xaqiiqatanna anoo ku hadlaaya magaca guddida waxaanu ballan qaadaynaa inaanu magaranaysaa maaragtay sidii bugaagtaasi aanay u dayacmi lahayn iyo daryeelkooda isla markaasna waxa qorshaha noogu jira haddii ilaahay yidhaahdo ama degmada gobolka berbere ugu jira in maktabaddaas la weynaysiiyo xidhiidhka aynu samaynay araha waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaad bugaagta noo soo kordhisaan qorshaha jira ma garanaysaa inaanu secondaryyaasha gobolka qudhooda aanu gaadhsiino xaqiiqatan waa hawl aad iyo aad u qurux badan oonu leenahay waa ku mahadsan tihiin idinka iyo hay-adda kale ka dambaysa ee ma garanaysaa life professor fariid qudhiisa hawsha quruxda badan ee laga sheegay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaaka allah khayran baanu leenahay khayra jazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ka faa'iidaystayaashii kale ee jaamacadaha ugu horeeyo professor diiriye oo ka socda jaamacadda camuud bal siduu kelmaddiisa mahadnaqa ah uu yidhaahdo waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد waxaan u malinay kolka waan soo yar gabagabaynaynaa oo horaan intii la doonayay bal waa la yiri laakiin mahadnaq ayaan u soo kacnay mahadnaqaasoon aad waxaan ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay jaamacadda Amuud hay-adda Araaha ee soo dhexmarisay buugta live ee oo madaxda ka yahay Fariid ee aad iyo aad u soo dadaalay ayaan horta aad ugu mahadnaqaynaa mahadnaqaasi oo xagga Ilaahayna ay qayb ku leeyihiin waa waxbarasho haddaan nahay jaamacadda Amuud markii koowaad maaha markii labaadna maaha markii saddexaadna maaha waa ay tiro beesha inta buugay noo keeneen laakiin ninbaa wuxuu yidhi ninbaa salaad tukanayay oo waxaa la wuxuu yidhi salaad buu tukanayo maqribaho aniyo wuu tujiyey wuu luuq fiicnaa moogtahay kolkii uu ka soo baxay luuq fiican idaaba aad baad cod fiicnayda kolkaasuu yidhi weliba sidaasaana weyse qabin buuri weliba sidaasaana weyse qabin buuri imika intaasoo waxa ayaa lanoo keenay laakiin imikuuba waan u weysaysanay oon u dhisannay guri 2 dabaqa 2 fooqoo isdul yaalla ayaaban imika buugta u samaysanay Fariid adiguna waxaan u malinayaa konteynaradii inaad nooga badan doonto halkaa xagga caafimaadka oo weliba ha u badnaato xagga caafimaadku taasi weeyaan ta kale dee sida aad u dadaalaysiin uman annaguna u dadaalaynaa oo kol xoolaha dacwada laga qaray qoloba dhinac ubay shaqada ka haysaa oo annaguna inaan buugta xaslanno oon ilaalinno oon ardayda iyo buugta isbarno taasina waa mas-uuliyadda ugu weyn waa inay bartaan ardayda buuggan ay dhiganayaan maxay isku yihiin qoladii xisaabta war buuggee ugu fiican kan bara taasi waa waxyaalaha kolkaad noo keentiin annagaaba inaga sii hawl badan baanu malaynayaa isbarta waxaasoo kontaynara ah iyo carruurta sidii la isku bari lahaa taa iyo xafidaadoodii iyo ururintoodii annaguna xaggaaba jasaakallaahu khayran had naga odhanaysin haddii la idhaaho marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه يوم سي بروفيسور ديريه waqtigeena ugu kooban awgii waxaan ugu yeerayaa haddana jaamacad ka mid ah jaamacadaha Hargeysa ahna jaamacadaha ugu waaweyn matalaysana jaamacadaha gobolka Maroodijeex ahna mid ka faa'iideysatay waxaan leeyahay Professor Nimcaan oo ka socda jaamacadda Golis falyatafadal mashkuura أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa kulley kelmadeedu waa mahadnaqun waxaan u mahadnaqayaa labada hay'adood live iyo Araaha si gaarana waxaan ugu mahadnaqayaa Professor Fariid sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Axmed iyo Xasan Miisaan iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qaaliga runtii waynu la soconnaa waxbarashada waxa uu aasaasaa in la helo sida ay sheegayeen qolooyinkii ugu horreeyey facilitieska waxaana kow ka ah buugaagta annaga oo markii ugu horreysay professorku uu donationkan la soo gaadhsiiyo aad baan ugu faraxnay isagii guddoomiyuhuna way kulmeen waxaan jecelnahay insha Allah inuu xiriirkaygu intaa ka sii dheeraado aad baan ugu faraxsanahay buugaag noocan oo quality noocaas leh inay jaamacaddu hesho runtii inay jaamacadda Golis aad bay ugu faraxsan tahay waxaanana markiiba u yagleelnay inaanu library dhigno oo imika uu socdo furnitureskiisa iyo wixiisa dhan ay socdaan sida Professor Diiriye sheegayo waxaan sugaynaa in loo soo kordhiyo waliba anagoo baahida way taallaa waan u baahannahay jaamacaduna sidii u baahan lagama dhargo cilmigana lagama dhargo saasoo markaa hadaynu doonayno inaan aqoonteena kor u sii qaadno waa in la helaa akhriskuna wuxuu ku xidhan yahay in buugaag la helo dunida casriga la joogana buugaagtu way isbedbedelaan oo imika tusaale ahaan jaamacadaha waddanku ma helaan versionskii ugu dambeeyey buugaagta marka waa aad baan ugu faraxsanahay weliba waddamada dunida waxbarashada ugu horreeya inay inaga soo gaadheen buugaagteedu mar labaad waan idiin mahadnaqayaa aad baad u mahadsantahay professor iyo intii kasoo shaqaysaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي يوم سيهي بروفيسور نمعان وحنو يري سجنا مثلها جامعة إيلو وإن لا تشوي سجنا بروفيسور كا أما هو جاميها أما قدوميها بروفيسور خضر
waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد وزير حقيقة وزارة وحبرشة هي تعليم تصرة أقاسمها هايدن أراها مسؤولين تكره حدي كسعودان جامعتها جورتدا عمود فونديشن يعيد كستو مدرسة فرديدة ورنتي أنا المقع دبين وحنا تقول سلام يا سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. runtii wax badan waxaan la qabaa walaalihii iga horreeyay iyo mas-uuliyiintii iga horreysay ayaan la qabaa wax badan ay bildaamiyeen runtii waxaan jecelahay inaan sii xoojiyo siday horena ugu mahadnaqeen labadan hay'adood runtii isuwan araha iyo life runtii ana waxaan jecelahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celiyo sidii diiriya sheegay runtii ma aha anaga markii koobaad ma ahana markii labaad laakiin waxa weeye waa tiraba dhowr jeer buugtaasina waxay wax badan ka tareen baahiyii jaamacadda qaarkood waxaa loo isticmaalaa imika waxaan loo isticmaalaa textbooks ayaa qaarkood buugta runtii loo isticmaalaa qaarkood waxaa reference ayaa loo adeegsadaa qaarkood waxay naga furteen culaysyo kale oo dhaqaale oo hadda markaad hal buug koobiyeynaysay ama aad ardayga u samaynaysay waxay kugu qaadanaysaa ugu yaraan $15 runtii taasi culayskaasi iyo baahidii oo iswanaydba runtii wax badan bay ka tartay buugtaas waxaana leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii walaalihii igu horreeyayba sheegeen haddun baan u micyeelisanay haddun baan isleenahay malaha jiibti iyo jaanta waad isla hesheen oo in halkaa laga sii kordhiyo ayay runtii muhiimaddeedu leedahay runtii Fariid iyo Axmed muddo badan baanu ka soo wada shaqaynay labadan mas-uul ee hawshan waxaanad moodaa inay annaga baahidayada qudhada marka buugta laga hadlayo annagii xitaa nooga lex jeclo badnaayeen kolba siday noogu muujinayeen nooguna xoojinayeen marka kolley goor gaaban hadalkeedna gaaban wax badanna odhan maayo laakiin wixii walaalihii igu horreeyay iyo mas-uuliyiintii kaleba yidhahdeen unbaa runtii la qabaa aad iyo aad baan idigu mahad celinaynaa ilaahayna miisaanka xasanaadka runtii ha idinku daro wax badan baad hadday waxbarashada tahay iyo hadday baahiyaha kale bulshadaba tahay aad ka qabateen halkaa ka sii wada annaguna waxaan inila qaban karno ka jaamacad ahaan iyo ka shakhsi ahaanba iyo ka bulsho ahaanba runtii diyaar baan idinla nahay aad iyo aad baanad u mahadsantihiin asalaamu allahu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waynu ka soo dhammaanay xaggii jaamacadaha iyo library-ga waxaan u yeedhaynaa waxaan u weecanaynaa xagga dawladda waxaan u yeedhaynaa ka faa'iidaystaha isagna peace ka socda peace and development oo ah professor xasan halas oo isagu noo jooga waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممثلية وجرا أكاديمي فور بيس أند ديفلوبمنت. runtii buugtan la soo gaadhay waa deeqadii ugu horreysay maaha waayo waxaan rabnaa inaan yagaleelaan doonayn maaha doonay School of Public Policy Studies dibadna markaasaan maaha inaan library abuuro oo waxyaalaha ku shaqada researchka iyo public policy-ga iyo social sciences-kaas yaan maaha naga yaan aad u tasgareynay markaasaas naga caawiyeen runtii waa markii ugu horreysay weli wuu dhismayaa weli ma dhismaa uu socdaa laakiin waa meelaha maaha waddankana aad looga baahnaa maaha in maaha intii ay khadka hala qaado hadda lagu jiraa halowskii lagu jiraa dhawaan buu bilaabaya markaa konsaamkii ugu horreeya buugtan iyagaa runtii aan ka helay taas aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii maaha runtii fududaysay iyo maaha meelahay soo mareenba iyo ciddii maaha awshaas ka xil qaatay sidii hore oo lagu mahadnaqay midda labaad xagga macnada u noqonayaa waxaa hadda la sheegayay buugtan in la siiyo ardayda textbook loo isticmaalo waan agaagay runtii waxaa fiican lahay haddii textbook loo isticmaalayo in lagu soo daro student manualkii iyo teachers manualkii iyo test bankoog inay wataan oo ka caawin lahaa macallimada muxuu ahaa inay macallinka wax dhigaya waxaas in muxuu ahaa siduu u qasan lahaa markaan textbook la keenine la keeno soo raayay kuwa textbook aan macallinkii ku shaqeynay manualkiisii iyo test bankiisii iyo student manualkiisina waa mid tala muxuu ahaa ku dartaan وحصلتنا قضية تكسب ولا استعماليه تاسواتها مرة runtii buugtan aad ilaa dugsiga dhexe way gaadhay isku saraba
oo aad bay muxuu ahaa runtii wax uga bedeshay muxuu ahaa waddankan muxuu ahaa intay gaadhay baan anigu aad u qabaa meelahan tegayna waxaan arkay muxuu ahaa iskuulaha secondaryada oo library galoo reference ahaan u akhrisanaya oo yaan arkay marka wax loo baahan runtii weeyaan waa culture cusub oo aynu rumayna inaan ardayna ku barro weeyaan marka ciddii hawshaa runtii iska hel qaaday waa aad u mahadsan yihiin ilaahayna jahaysaa ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفل في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كسوق قلياشا تتلذك لدوان وطا جامعها حلبانada iyo hay'adaha qolooyinka ka joogaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdi halkan maanta waxay noogaga furan qolo walba mahad celin inta ka waafaqsan inay ka mahad celiso waxaan u mahad celinaynaa hay'adaha buugtan ina siiyey ee professor Fariid uu nooga soo qaaday hay'adda life iyo hay'adan kale araaha ayaanu aad ugu mahad celinaynaa ka wasaarad ahaan buugu haddii macallinku uu waayo agabka waxbarashada wixiisu waxba ma noqdo maalinba waxbuu sheegaayo wixiisu waa soo xidhmaan agabka waxbarashadana waxa aasaas u ah ama gundhig u ah buugga ilaa imika tiknoolajiyadani markay soo baxday waxa la yidhi buugga miyay bedeli karaysaa tiknoolajiyadan casriga oo haddana waxaa la ogaaday inaynay marna buuggii tiknoolajiyada casriga aynay meesha ka saari karin balse uu buuggii weli hormoodkiisii uu yahay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa professor Fariid oo walaalkay xaaji maxamed ismaaciil kaahinna saaxiib dhow ay ahaayeen aad ayaan ugu mahad celinayaa dadka qurba joogtii waxa cid walbaaba way dadaashaa laakiin qaarna dhinaca positive-kay u dadaalaan sida Fariid oo kale oo buug iyo agabka wanaagsan ee waxtar kale ayay inoo keenaan qaarna iyaga ina kala fogeeyo qabyaaladii iyo wax inoo keena marka waxaan leeyahay ku dayasho mudan ku dayasho wanaagsan ayay leeyihiin shakhsiyaadka iyagu horumarka ka shaqaynaya dalkani wuxuu soo maray iyadoo warqad yaroo wax lagu qoraba la laayahay daasadana lagu fadhiyo maantana alxamdulillaah dawladdii iska daayay shacabkii qaarkood ayaa waxay fahmeen in dadka maankooga in la dhiso mooyaane uunu dadkani kala soconayn oo iyagu isku soo noqonayaanba marka laga yimaado waxbarashada xataa nabadgelyada ayay ka qayb qaadanaysaa dhallaanka in la mashquuliyo oo aan la odhan 4 warqadood oo kaliya weeyaane oo macallinku waa halkaa ku qoraye maraajic iyo reference waxyaalo ka dambeeyay library baa jira horumarka cilmiga marka laga hadlayana ka wasaarad ahaan qaybtan agaasimka waxbarashada sare waxyaalaha la soo kormeeray laga soo kormeeray jaamacadaha waxa kamid ah talow library wanaagsan oo wax laga akhristo meeshan ma leedahay mise waa maqaaxi laga baayac mushtarayo marka waxaan filaynaa in buugaagtani aynay noqon kuwa dhasku dilo meelo la saaray sidii mararka qaarkood xataa waxaynu aragnaa kitaabka qur-aanka ah oo gaari dhex yaallo dhasku ku dhacay ama meel yaalla marka sidaa caadada aynu leenahay ee aynu nahay dad afka wax ku kala qaata ee aan buugga waxba ka eeginay yiraahda joornaalka kani markuu akhriyana isagoo akhrin kara xataa uu yiraahdo war maxaa ku qoran oo uu diidaya time-ka uu indhaha wax ka akhriyayaba ummadda islaamkuna iyada asal u leh wax akhriska oo intii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la oran tuka aan la oran oo aan cibaadaysan la oran dee wax akhri baa leeyahay taasi maanta ay waqtigaasi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu yiri wax akhri oo ummadii wax akhriska aynu nahay ayaa maanta adduunka waxyaalaha lagu kala saaro bulshada marka la leeyahay ummadani waa ummad horumartay imisa wax akhrida waa mid kamida marka aad ayaan ugu mahad celinayaa labadan hayadood life iyo hayadan kale araaha
wasaarad ahaan hawlna saarnayd ayay naga furteen oo ay naga fududeeyeen anigoo weedhaa ku matalaya wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor geedoole xaggii dambuuna ha ka qabta magaciisa intaa dambaa caan baxdaye oo isaguna hawl ku saabsan xagga waxbarashada ugu maqan bari iina soo wakiishay kelmaddan ayaan aad aan idinkaga mahad celinayaa hawsha ku dayashada mudan ee aad samayseen dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanna waan idinku garab joogaynaa hawshaasi assalaamu calaykum guntiga gabagabadii waxaan gaadhnay intii ugu dambeysay barnaamijkeena waxaan guddoonsiin doonaa jaamacadaha sawir yaro group ah oon ka qaadi doona